بسم الله الرحمن الرحيم. halkan waxaan ugu hambalyeynaa doorashadii saaka ka dhacday wasaaradda isboortiga dhalinyarada iyo Soomaaliland taasoo loo qabtay guddigii xiriirka lana kula dooranayay 5 xubnood oo fulina 3 xubnood Gudoomiye Faad iyo Khalid Sidaal iyo 3 xubnood oo kale intaba hambalyo baan leenahay. waxaan hambalyo u mareynaa hawada iyo baraha bulshada dhammaan bahda isboortiga oo saaka gudoomiyaha xiriirka loo doortay Gudoomiye Faad iyo Khalid Sidaal oo ku xigeenah خضر آدي آد والله مبليان يا سجارة ولا حسوس بدن ولا مين بدن كسر شيء حلو كقبضة سوماليان أو كقبضة يتمرد بقى خضر ما أنت هو كسر قدبي وكسر لو قدر شيء قدوم يكحجين همبليان مرة بعدين مرة استحاد بقلنا أنا بهذا قصور في قبضة تقلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي وساكن عبد الجامع halkan waxaan hambalyo uga dirayaa Gudoomiye Faad iyo Khalid Sidaal oo xulooyinkiisa iyo 3 xubnood la doortay 5 qaab oo soo dhaweynaya welcome baan leenahay hambalyo gobolka Togdheera mid wasaaradda isboortiga gobolka Togdheera mid garsoorayaasha gobolka Togdheera intaba kaliya laab ayaan leenahay hambalyo waxa kale oo halkan hambalyo uga dirayaa intii naga matashay gobolka Togdheer ee uu horeeyo isduwaha garsoore qaran iyo Jamaal intaba waxaan leenahay guul baa soo hoyseen sidii saxda ahaydna waa soo codeyseen de Khalid Sidaal iyo Faad laba nin oo way arago 30 sano ku soo dhex jiray sportska ahaayeen hambalyaan leenahay waxaan halkan mar labada hambalyo uga dirayaa page-ka Hogasha News oo ah page mar walba garab taagan dhalinyarada iyo sportiska hiil iyo hooba la garab taagan waxa labada kaliya warbaahin gobolka Togdheer iyaga iyo dhacdooyinka qaarba waa labada nin ee garab taagan dhalinyarada ee wax mushahara iyo wax lacagana aan cid ku siin laakiin iyagu gartay wax ay dhalinyaradoodu u baahan tahay in intaasi tahay ayaan halkan uga dirayaa Sacad Afjar iyo Raaga Xasan Raaga halkan hambalyo gaar ah iyagana uga diray.